Bismillahir Rahmanir Rahim. Soo dhawaada daawadayaal. Magacaygu waa Cabdullaahi Ganay. Waxaan program assistant ka ahay hay'adda Walshare International. Waana mar kale iyo madal kale iyo barnaamijkeennii aqoonta lahaa ee wacyigelinta ahaa ee uu idiin soo diyaarin jiray programka East African Smoke Free Program. Programka East African Smoke Free Program waxa uu ka mid yahay barnaamijyo fara badan oo ay bixiso hay'adda Walshare International. Hay'addu waxa ay ku taalaa gobolka Minnesota, gaar ahaan magaalada Minneapolis. Waxa ayna xarumo ku leedahay dalal badan oo ka mid ah bariga Afrika. Gobolka Minnesota hay'addu waxay la shaqeysaa dadka Soomaalida ah. Waxa ayna diiradda saartaa barnaamijyo fara badan oo ay ka mid yihiin nolosha caafimaadka leh, cuntada caafimaadka leh, qorsheynta qoyska, ka xorowga sigaarka iyo jimicsiga jidhka iyo waliba horumarinta dhalinyarada. barnaamijkan haddaan usoo daadego East African Smoke Free Program waxaanu diiradda ku saarnaa sidii aan uga daawateen barnaamijyo hore oo aan idiin soo gudbinay dhibaatada sigaarka waxaana ummadda Soomaaliyeed ka wacyigelinaa dhibaatada sigaarka iyo qiiqa tubaakada. waxa kale oo aan la shaqeynaa maamulayaasha, mulkiilayaasha iyo maareeyayaasha dhismayaasha la wada dego oo aanu kala shaqeyno sidii ay uga dhigi lahaayeen guryahooda meelo aan sigaarka lagu cabi karin. ugu yaraanba laba barnaamij oo hore ayaan halkan idiga soo gudbinay. Kii koowaad waxa uu ku saabsanaa dhibaatada qiiqa sigaarka, cudurrada laga qaado, kiimikooyinka ku jira iyo sida looga badbaadi karo oo ah in lagu noolaado guryo aan sigaarka lagu ogolayn. Kii ka xigay waxa uu ku saabsanaa noocyada tubaakada, imise nooc bay u kala baxdaa, nooc waliba sidee u eegyahay, nooc walba maxaa dhib ku jira, xanuuno noocee laga qaadaa. maantana waxaanu tubaakada iska istaagi doonaa xagga diinta Islaamka. culimadu sidee u aragtaa sigaarka? ma xalaalba, ma xaaraanba? culimadu sidee u aragtaa shiishada? door intee leeg bay ka ciyaari karaan culimada Soomaaliyeed in kor loo qaado ogaalka dadka Soomaaliyeed ee ku aadan dhibaatada sigaarka iyo xanuunada uu keeno? su'aalo fara badan oo ay kuwaas ka mid yihiin waxa Rabbi xasanada ka siiyay inooga jawaabi doona Sheekh Sacad Muuse oo ka mid ah culimada ugu caansan gobolka Minnesota iyo guud ahaan waddanka Mareykanka. Imaam Sheekh Sacad marka laga yimaado aqoonta uu leeyahay xagga diinta Islaamka waxa kale oo uu yahay wadaad in badan xil badan iska saara sidii looga hadli lahaa dhibaatooyinka haysta ummadaha caalamka oo dhan, gaar ahaan kuwa Islaamka khaasatan Soomaalida. waxaana uu ka muuqdaa meel kasta iyo madal kasta oo lagaga hadlayo dan bini aadan ama dan Islaam ama dan Soomaaliyeed. haddaba inta aanan Sheekh Sacad iskiin barin ee aanan u gelin su'aalaha aan weydiin doono, waxaan rabaa in aan idin sheego haddii aad barnaamijka jeceshiin inaad ka qayb qaadataan inaad naga soo wici kartaan telefoonka iyaga oo ah 612-230-3251. haddaan idigu celiyo waa 612-23-3251. emailka iyaguna waa easfp@walshareinternational.org. mar kale haddaan ku celiyo waa easfp@walshareinternational.org. Facebook iyaguna waa East African Smoke Free Program. waxaan rabaa in haddaan barnaamijka ku soo dhaweeyo Sheekh Sacad. falyatafadal Sheekh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. marka ugu horeysa inagoo Ilaahay ku mahadinayna waqtigan qaaliga ah barnaamijkan quruxda badan kaga hadli doona, waxaan mahad gaar ah u celinayaa hay'adda Walshare iyo gaar ahaan madaxda ka socotay ay ka mid yihiin Master Andy iyo Master Cabdullaahi iyo gabadheena qaaliga ah Saciida. marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin. hay'aduna aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay. aad iyo aad baad u mahadsantahay. barnaamijyada quruxda badan leh bili aadanka wax taraya ee Soomaalida wax taraya ee cid kasta oo maxaan ku raahdaa bili aadan wax taraya. aad iyo aad baad ugu mahadsantahay markasta soo gudbisaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بان هذا كهاي قدوني هذا مدن هذه كنا سازو كلا ونكون هذا قلنا سدا في عنا نواق بشيء يساد نقلاص وغير كذا شيء برنامج كا يساد مركز تبع مالك استودنت بني آدم كلا جوه هيو هذا وقفر فرعون تهذو قد حموقته
sheekh Saacad barnaamijkan waxaanu kaga hadalnaa tubaakada waxaananu kor ugu qaadnaa ogaalka dadka Soomaalida ah aqoontooda ku saabsan tubaakada dhibaatooyinka ay tubaakadu keento waxyaalahaas oo dhan barnaamijkan kaga hadalnaa marka waxaanu dadka uga dignaa halisteeda caafimaad iyo cudurrada laga qaado su'aalaha aan rabo inaan ku weydiiyana mawduucaas uma la xiriiraan marka horta waynu ognahay hada culimada islaamka iyo kuwa Soomaalidu sigaarka ma cabaan mana la saaxiib aha cid sigaarka cabta masaajidadana lagu ma cabo marka bal culimadu aqoon intay leeg bay u leedahay Soomaalida iyo sigaarka kolkay kala marayaan iyo tubaakadu warka culimadu waxay ka mid yihiin marka ugu horeysaba dadka bini'aadanka adduunka ku dhashay iyadoo sigaarka la cabaya dhashuun bay ka mid yihiin sax marka way og yihiin culimadu sigaarka in dadku cabaan oo maxaan ku yiraahdaa meel kasta oo adduunka ka midana laga yaqaano oo way og yihiin oo way ka warhayaan sax waa si wanaagsan haddii culimada guud ee adduunka laga yimaado kuwa Soomaaliduna way ka warhayaan baan qiyaasayaa nacam Soomaalidu waxay ka mid tahay dadka uun ku nool adduunyada gaar ahaan culimada Soomaalida ee joogta gaar ahaan meelaha magaalooyinka sida wadanka Mareykanka oo kale aad iyo aad bay uga warhayaan waayo meel walba waxa lagu qoraa no smoking halku cabi sigaar meeshan marka sigaarka waa la og yahay inuu dhibaato leeyahay dadkuna ay cabaan waa la og yahay marka way ka warhayaan culimadu haddii aan ka soo daadego halkaas oon u soo daadego xagga diinta islaamka oo maanta barnaamijkan uu ku saabsanaan doono adna ilaahay ajri xasanaada ka siiye wixii cilmigaaga ah ee aad su'aalahan kaga jawaabayso aad nala wadaagi doonto waa maxay aragtida islaamka ee ku aadan sigaarka maxalaal baa maxaaraan baa aragtida islaamka ee ku aadan sigaarka haddii aan jawaabtaa bixiyo wax walba waxay ku soo arooraan islaamka waa shariicada islaamka weey marka shariicada islaamkuna way cadaysay sigaarka maxaan ku yiraahdaa fahamka laga qabo iyo wuxuu yahay horay u cadaysay qarniyaal sano ka hor baa la cadeeyay oo ilaahiisaba quraankiisa ku cadeeyo yiri wax kasta oo bini aadanka dhibaya waa xaraan weey rasuulkeena calayhi salaatu wasalaamna wuu cadeeyay oo wuxuu yiri maaragtay waxa wanaagsan ee bini aadanka loo abuuray ugu fiican cuna waxa xunna ka dheeraada ilaahay subxaanahu wa ta'ala markuu adduunkan abuurayna ballaaran cidina daafihiisa gaadhaynin waxa looga dhigay khaliif waa bini aadanka yani annaasu khaliifatullahi fi lardi dadka ilaahay wakiil uga dhigay ardadan inay qurxiyaan oo ay camiraan markaasuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala khaaliqeenu uu dadka markuu abuuray deetana masjid buu soo raaciyey min alawaliina waalaakhiriin kuwii hore iyo kuwa dambeba anfacaya oo ummad waliba waxa la risaaladeeda iyo rasuulkeeda marka inaga haddii aan nahay ummadda ugu dambaysay rasuulkeena rasuulkii rususha ugu dambeeyay uu yahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi nabi maxamed wax walba quraanka iyo sunnaha nabiga cadeeyay marka haddii aan yani halkaa iftiimiyo ilaahay wuxuu inoo sheegayaa ilaahay inuu dadka abuuray khalaqal insaana ilaahay dadka isaga abuuray wa huwa aclamu bima yasluxu bihi waxa isaga yani u saalixee naftiisa u wanaagsan bini aadanka iyo noloshiisana ilaahay waa og yahay oo wax la cuno iyo wax la cabo iyo wax lagu intifaaco intaba iyo wixii dhibahe ka imanaya waxyaalaha aan loo banayn marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku leeyahay isagoo ku cadaynaya bini aadanka qiimaha uu ilaahay u siiyey iyo waxa wanaagsan uu abuuray inay cunaan oo cabaan wuxuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku leeyahay bacda acuudu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim walaqad karramna bani aadama walaqad karramna bani aadama وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلق تفضيلا صدق الله العظيم آيات القرآن كه وحي إنه شيء إلهي سبحانه وتعالى إنه بلا آذنك وأبوري وكرامي ولقد كرمنا بني آدم وأبورني وحملناهم وحنكو حنبرنا ندجنا نسيني في البر دولكا بلارن iyo walbaxri badaha ay ka faa'iideystaan warasaqnaahum
waxaanu ku arsaaqnay oo inay cunaan iyo inay cabbaan iyo inay huwadaan iyo inay isticmaalaan intaba ah min adayibaati waxa ugu fiicfiican oo la yidhi kuluu min adayibaati ya waxa wanaagsan cuna lagu yidhi oo rusul lagu soo dhiibay wafadalnaahum waxaanu ka fadilnay ilaahi subxaanahu wa tacaala ya calaa kathiirin wax badan oo mima khalaqnaa tafdiilan wax badan oon abuurnay oo makhluuqa ilaahay ah ayaanu bini aadanka ka fadilnay buu ilaahay subxaanahu wa tacaala marka cabdullaahi aayad kale ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku caddaynaya uu leeyahay wayuxil lahum ayibaat ilaahay dadka wuxuu u xalaaleeyey waxa wanaagsan wayuxarimu calayhim alkhabaa'itha waxa xunna wuu ka xaaraantinimeeyey oo alxalaalu bayin والحلال بين النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام وبينهما أمور مشتبهات فاجتنيها بوري النبي عليه الصلاة والسلام وحوري حلاش نوي عده إلهي بقى قرآن كيسكو عديه حاران تنوي عدها إلى قرآن كيسكو عديه يسنها النبي وكو عديه يا وبينهما دحدودنا waxa ku jira umuur mushtabihaad oo xalaalna ahayn ya xalaalna ahayn hadii la isku qaldi karo marka waxa la yiri fashtanibuha ka fog iyada lafteeda ka fogaada la marka ilaahay subhanahu wa ta'ala alkan siyar cadeeye abdullahi wa yuharrimu alayhim alkhaba'ith buli ya marka ilaahay yiri wixil lahum at-tayyibat wax dadka waxaanu u fasaxnay waxa wanaagsan inay cunaan oo cabbaan isticmaalaan ويحرم عليهم الخبائث وحا خبيث كان حارنتنميه حمينيا ee naftooda iyo noloshooda iyo karaamadii cisigooda wuxuu dhigayana ka fogaada lay oo hadii halkaan si cadeey waxa weeyaa suuratul araaf aayada 155 baa cadeynaysa qofkii doonaya inuu kitaabka quraanka aad uga sii faa'ideysto wabillahi tawfiiq aad iyo aad baad u mahadsan tahay rabbi xasanaadka kaas iyo sida faahfaahsaneed su'aasha uga jawaabtay waxaanan u fahmay in aragtida islaamku uu ka qabo tuwaakadu ay tahay xaraan maadaama aanu ku jirin waxyaalo fiicnaaye laynoo baneeyay xalaashuna ay badan tahay xaraantuna in yar oo la isla yaqaan ay tahay dhexdooda waxa u dhaxay la isku qaldayna la yiri ka taga waba xaraanay hadaba haday saa tahay oo islaamku ka qabo aragtida ah inay uu sigaarka iyo tuwaakada oo dhani ay xaraan tahay dadku waxa laga yaabaa isweydiiyaan ummadda Soomaalidu waa islaam waxba la yiraahdaa boqolkiiba boqol waa islaam baa la oran jiray marka hore haddana waxa la yiraahdaa boqolkiiba adu 99 something waa islaam marka maxay u isticmaalaan tubaakada haday xaraan tahay horta de waxa la yiraahdaa lagu mahmaaha Abdullah sulid الناس amma nuhiya anhu waxa dadka loo diiday iska daa la yiri ba haddana lagu saliday waayo maxaa la xiriira waxa la xiriira naf iyo shaydaan shaydaanku dadka wuxuu amraa oo baraa oo u qurxiyaa waxa ilaahay u diiday oo dhan wuxuu doonaba ahaadee naftuna waxay adeecdaa oo ay u tahay yani wax jilicsan u tahay loyal tahay maxaan ku dhahay shaydaanku waxyaaluhu qurxiyay inay jeceshahay oo ay raacdo bini aadankana ilaahay caqli buu siiyey caqligaaba la doonaya markaasi inuu ku garto waxa ay shareecadu u xalaalaysay iyo waxay ka nahayday marka maadaama dadku la yiri war waxaasi waa dhibay iska daa de shaydaankii ba halkan joogo la bar isku day waxba ku yeeli maaye marka dadku way og yihiin waxyaalaha dhibka keenaya way og yihiin sigaarku dhibka uu leeyahay haddana de naf iyo shaydaan baa meesha joogo dadku waxay cabayaan oo cunayaan waxa ila balwad baa jirta balwadaasina wax dadka la xiriira weeyaan shaydaanku dadka uu qurxiyo صح waa si wanaagsan marka in waa dab oo naftu waxay jeceshahay wax allaaliya wuxuu shaydaanku jecel yahay ama uu la rabo oo shaydaanka u qurxiya waa la garanayaa taas ma laga yaabaa in ay iyana ay taas qayb weyn ka qaadataa inay qayb kale oo ah jirta inayna dadku fahansaneen baba inuu xaraan yahay oo imiko kale ma arkaysid dad badan oo Soomaaliya oo isticmaalaya in maxaa yahay waxyaalaha maandooriyaha sida khamriga iyo waxyaalahaas oo kale oo quraanka toos loogu cadeeyo la yiri khamriga ka dheeraada oo la wada garanayo qof walba garanayo inuu khamrigu xaraan yahay oo kale in maxaa yahay uma badna ma cabto Soomaalidu hadii cabtana waxa ka cabaa qadar aad iyo aad u yar laakiin sigaarku taa uu ka duwan yahay marka ma laga yaabaa inayna jirto aqoon la'aana ay jirto horta de dadku waxa la yiraahdaa insaanu cadawun lima jahila dadku cadow uu yahay maxaan ku dhahay wuxuuna aqoon u lahayn
waxaa laga yaabaa dadka badankiisa cabaya sigaarka inaanay aqoon u lahayn xagga diinta islaamka ama shareecada ama naf iyo shaydaanba qasbayaan oo dadku maxaanku idhaahdaa dee sidiisaba bini aadanku isagoo xaaraanta og buu haddana ku dhaca oo ilaahay subxaanahu watacaala dee bini aadanka wuu abuuray waana insaankaasna waxaa loo yidhi wax badanna wuu iloobaa wax badanna wuu ku dhacaa marka sida taasi u jirtana waxa weeyaan rasuulkaana caddeeye wuxuu yihi kullukum khataa'uun rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam maxamed ibn cabdillah salawaatullahi wasalaamuhu calayhi baa caddeeyo wuxuu yihi kullukum yani khataa'uun wa khayru lkhataa'uuna atawaabuun yani kullukum waad dabbaabtaan dadow oo waxay iska daa layidhi baad samaysaan waxaad arkaysaan in la yidhi waxba ha dilin waxna ha dhicin waxna ha xadin oo wixii samaynaya waxbuu dilayaa waxbuu dhacayaa waana xaaraan uu ogyahay qof baa la yidhi ha sinaysani waa sinaysanaya haddana waad arkaysaa qof baad arkaysaa maxaanku idhaahdaa khamri cabaya oo xaaraana marka yani bini aadanku waa gafe kullukum khataa'uun wa khayru lkhataa'ina atawaabuun buu nebigu calayhi salaatu wasalaam balse ilaahay toobad buu furayoo de markay qofka dembi ka dhaco inuu toobad keenaa loo baahan yahay toobad keen marka dee dadku inta badanna cilmi la-aani way jirtaa wax bini aadanku mar kasta uu ku gafayaano naftiisa ku gafaya ama ta bini aadanka ku gafayaana way jirtaa marka taasaa keenaysa qofku waxaa kaloo jirta dadka inay qaafili noqdaan baa la diidayaa laakiin dadku haddana waa qaflad baa ku jirto oo isma oga waxaanu samaynaya mararka qaarkood naf iyo shaydaan iyo balwad iyo waxaan loo baahayn iyo kubaa odhanaya intuu iska daayay sigaarka bal maanta waxba ku yeelmaya xabadda ku dhufo kubaa odhanaya maanta khamriga waad iska daysay kubaa kaxaynayaba hadduu doono dee balwaddu qofka wuu baraa oo waa la isku kaxaystaa oo waa la isku kaalmeeyaa taana shaydaan iyo naf baa intooda badan sababta marka waxaa loo baahan yahay dadka in wacyigelin weyn lagu sameeyo waan gartay oo muxuu ahaye looga digayo khatarta uu leeyahay sigaarku sida khamriga iyo sinadaba ay la mid yihiin waa runtaayo aqoon la-aantu iyadoo ay jirto haddana waxaa jira de in waxay baladu tahay oo lagu noqdo la qabatimo oona qofku wixii iska dayn karayn oo keentay kaas qofku isagoo xitaa xalaal iyo xaaraantooda iyaguna u eegayn dadku waxay u eegi lahaayeen waxaan aad ku xanuunsanaysa kansarka uu keenay ama cudurada kale iska daa waxaa jirta de waxa addictionka kaga dhigaya qofka uu la qabsanayo markaas maadaama aad jawaabtaada taabatay in ay jirto aqoon la-aani culimada islaamku gaar ahaan kuwa Soomaalidu door intee lag bay ka ciyaari karaan inay ummadda bal wacyi geliyaan u sheegaan inay xaaraan tahay dhibaatadiisa ka hadlaan muxuu ahaye ay bulshadii kor u qaadaan aqoontoodii ku saabsanayd muxuu ahaye diinta islaamka waxyaalaha laga xaaraantimeeyay sigaarku ka mid yahay tubaakadu ka mid yahay naftaada hadduu wax yeelayo aad aakhire ku cadaab tegi karto door intee lag bay culimadu ka ciyaari kartaa nacam waa cabdullaahi aad iyo aad bay arrintaas muhiim u tahay culimada iyo waxgaradkaba bulshadu arrintaa qayb libaax bay ka qaadan karaan qayb libaax oo weyn waana mas-uuliyad saaran qof kasta oo mas-uula culimaduna waxa weeyaan dee waa nabigaa sheega calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan waa warathatu lambiya rusushii bay dhexleen culimadu yani rusushii ilaahay bini aadankan u soo diray inay wadada toosan mariyaan taxuna uga digaan ayaa ay culimadu ilaahay uu yiri rasuulkiisu yiri waa warathatu lambiya oo maxaanku idhaha waxay taagan yihiin halkii nebi laga soo dir lahaa macnaheedu waa maxay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa nebiyada lagu khatimay mar haddii nebiyada lagu khatimina culimada ayaa makaanadiisii joogta marka iyaga si gaara ayuu mas-uuliyad weyn uga saaran tahay bini aadanka wanaajintiisa iyo hanuunintiisa iyo hagaajintiisa iyo ilaahay ku xidhidiisa iyo amarka ilaahay oo loo sheego amarka ilaahay qaataan oo dariiqa rasuulka ku qaataan waxa ka mas'uula culimada ka mas'uula dadka in wax xun looga digo iyaga ka mas'uula dadka in ilaahayda lagu xidho say u cibaadeysan lahaayeen ya cibaadada u qurxin lahaayeen inay ku xidhaan iyaga ka mas'uula waayo shareecada dadka inay u cadeeyaan oo noloshoodii yani ku habaysan noloshoodii nolol maalmoodkoodii ku habaysan habeen iyo maalin qofku ku habaysan waqtigu joogaba ku habaysanna culimada inuu cadaysa mas-uulka
waa dhab waa weeyaan mas-uuliyad saaran weyn sax marka waxay ka qaadan karaan door weyn waxaa kaloo soo raaci kara waxgaradka waxaa ku horeeya maarata waalidka waalidku waa waxgarad weyn sax qoys bay mas-uul ka yihiin odayga iyo islaantu odayga reerka sax iyo xaaskuba waxay mas-uul ka yihiin reer dhan marka iyagana xil gaaraa saaran kuwaasna sax laakiin halka laga soo qaadanaya talada iyo tusaalaha waa halkay shareecada islaamka ku wareerta taasna waxaa caddaynaysa culimada marka culimada iyo qof kasta oo mas-uula oo waxgarada gaar ahaan waalidiinta ayaa iyagana xil gaari ka saaran yahay inay waalidku waxa laga yaaba caruurtooda inay dee ka barbaariyaan si wanaagsan oo waxa xunna ay baraan ay ka leexiyaan inuu xaaraan yahayna tusaan waxa wanaagsanna ay u iftiimiyaan xil baa saaran waalidka culimadana xilkii guud baa saaran oo dee shareecada islaamka oo dhan ilaalinteeda iyo dadka fahamsiintiisa hadday tahay cibaadaad iyo hadday tahay iimaaniyaad iyo hadday tahay akhlaaqiyaad iyo hadday tahay mucaasharaad intaba culimada la doonaya inuu cadayso marka haddaan halkaa kaa yara dhex galo sidaas wey waxaa tiri waalidka oo kale waxaynu badanka haddaynu inagu Soomaali nahay ku aragnaa wacyigelinta ama in qofka wax loo tuso wax loo sheego waxaynu u naqaanaa in afka looga sheego la waaniyo in ficil ahaan looga tusaana way ka mid tahay nacam mararka qaar soo ma dhacdo in aabaha oo kale isagoo sigaar caba uu haddana u sheego ilmihiisa yar ha cabin uu xun yahay marka uuna arkaya inuu aabihi cabayo maxaa ma waxa xoog badan ha cabinta mise aabihi cabayo inuu arko marka arrimahaas oo kale ka war wallahi de waa dhaqan yani aan faafay baa iska jira oo dhaqan xun oo ummadda ku faafay baa jiro oo macnihii waqti hore dadka galay oo muddo dheer soo jiray waa dhaqanka sigaar cabidda waa dhaqanka matalan Soomaalida ka soo qaad waa dhaqanka qaad cunidda waa dhaqanka shiishada oo hadda nagu cusub wax nagu cusub ah oo khatar iyada lafteedu marka qofkii intuu wixii sameeyay qof kale uu uga digay haddana uu leeyahay marad waa arrin lala yaabo weeyaan oo yani maaragtay naftiisiina uu ku ridayaayo walaa tulquu biaydiikum ila tahlukana waa lagu yiri quraanka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa naftiina khatara ku ridina marka isagoo khatar ku jira laga yaaba bini aadanka waa yani dhaqanka ku faafay inuu haddana uu yiraahdo war iska daa cabina sigaarka oo waalidku yiraahdo isagoo sigaarka cabaya inuu caruurta iska daa yiraahdo marka waa wax yani aan qurux badnayn way runtii maadaama waalidka halka dad soo qaaday waalidka waa madrasada ugu horeysa ee qofka bini aadanka lagu barbaariyo gaar ahaan caruurta lagu soo barbaariyo marka waxaan halkan hadda fursad u helay maanta inaan waalidka la hadalno luqadayda fahmaya Soomaaliyeed luqada Soomaaliya ku hadlay oo aan ilaahano yani waxa ilaahayna amray waxa weeyaan waxa wanaagsan in isticmaalo oo aan cabno ama cunno ama aan hubno ama aan isticmaalo sax marka maadaama aynu waalidnahay waxa loo baahan yahay waalidow in caruurta lagu barbaariyo waxa xalaasha ilaahay u baneeyay inay maaragtay isticmaalaan oo dee macallimiin baa tihidee la baro waxa xunna looga digo oo laga joojiyo aad iyo aad baan uga faa'iidsanahay arrintaas waa arrin muhiim ah wey culimaduna dee door weyn bay ka qaadan kartaayoo wacyigelin bay masaajidada iyo muxaadarooyinka iyo goobaha la isugu yimaado iyo meeshay joogaan iyo ka jeedin karaan oo dadka ka waanin karaan wixii xun oo dhan sigaarka kaliya ma wixii xun oo dhan laakiin sigaarka iyo shishadu waa khatar cusub oo dadku ogeyn xataa xaaraannimadeena lama oga sax maadaama halkaa shishada ka dhawaajisay waxaan rabaa iyada lafteena su'aal ka weydiiyo tubaakada maynu ka hadlaynay oo dhammaan way wada hoos imanayaan laakiin waxa laga yaabaa dadka Soomaalida inay tubaakada u yaqaanaan baba sigaarkana sigaar u yaqaanaan tubaakadana ta afka lagu rito u yaqaanaan laakiin marka muxuu ahaaye loo fiirsado sida ay yihiin dhammaantood waa tubaakadu ma si kala baxayso ama shiishada ama sigaar ama wax noqonaysa shiishada imika inagu cusub sidee uu islaamku arkaa shiishada ma aragtida sigaarka kale uu ka qabaa mise tuktaa ka duwan nacam shiishadu waa sida sigaarka oo kale waayo inaga waqti dhow bayna soo gashay soo gaadhay Soomaalida laakiin adduunka hore uga jirtay culimada islaamka shareecada islaamka cadaysayna sida fiqiga oo kale hore loo cadeeyay waxa weeyaan waxay ka mid tahay tubaakooyinka khatarta ay ka mid tahay oo iyaduna halka sigaarkii taagan tahay haddaanay kaba shiishaynba sax anu hadda waxaan u arkaa oo aan arkay dadka Soomaalida ah in ay yani aad ugu soo badanaysa sida sigaarka oo kale bahasha shiishada la yiraahdo marka isticmaalkeedaasina dadku ma ogeeyeen waana khatar waana xaraan
waana cudurro halistaana laga qaadaa marka waxaad leedahay culimadu way la socotaa in ay because tusaale ahaan adduunka oo dhan meel ay Soomaalidu ku nooshay aad bay u isticmaalaan shada in haddaan tusaale soo qaato gobolkan aynu ku noolnahay magaalooyinkan aynu kaga sii noolnahay waxaa ku jira ugu yaraan dhowr iyo 10 baar oo lagu cabo shiishada oo la tago oo muxuu ahaayay aad looga isticmaalo waxaan moodaa inay aad iyo aad ugu soo badatay muxuu ahaayay dadkii aad u cabaan marka culimadu waa ka war haysaa taas uma culimadu waa laga yaabaa inay qaaran ka warhayn laakiin waa ka warhayaan waa laga yaabaa qaaran ka warhayn inay dhici karto laakiin kollayto culimo maadaama ay wacyigelinta bulshada u taagan yihiin iyo hanuuninta mujtamaca guud ahaan way og yihiin wixii khatar jiray wixii dhib jiray wixii mafsada dhib keenaya ee mudaro leh culimo markasta way la socdaan dadkana way uga digaan waana dadkana ka hanuuniyaan marka way og yihiin intooda badan balse waxaan ku baraarujinaynaa maanta oo fursaddan uga faa'iideysanaynaa waa mas'uuliyad culimadu inay waxa khatarta ah mujtamaca ay uga digaan okay su'aal kale oo sigaarkii haddaan ku noqdo badanka Soomaalida waxa lagu arkaa 95% in sigaarka waxa u badan ragga dumarka sigaar caba aad bay u yihiin haday jiraan waa ma jiraan haday jiraan waa faraka turis waa muxuu ahaayay lamana arka badanka diinta islaamku ma aragti kala duwan bay ka qabtaa muxuu cabitaanka sigaarka ee ragga iyo cabitaanka sigaarka ee dumarka mise isku si u arkaa maya waa isku si un weey ama rag haw ama dumar haw isticmaalka sigaarku waa wax loo siman yahay weey rag waxa u badnaado waayo dumarka de kullee wax xun ragga uga badan taasi shakilaan weey wixii xun oo dhan dumarka ragga uga badan Soomaalidu inta wixii xun xawaale aad waxa leedahay sheekh wixii xun ragga u badan ma de ragga u badan waxaan ugu bogaanahay waxa weeyaan yani dumarku inta badan meelaha public ah kuma cabaan sigaarka mana la yimaadaan Soomaalidu gabadha cabta waxa laga yaabaa in la dhuumato saasay ku yaraanayaan marka laakiin ninkani public buu ku cabaya ragga u badan saasan u aragnaa waxaan maaragtay hadda anigu aaminsanahay kullee in raggu u badan yihiin laakiin rag iyo dumar lama kala soocin shariicada waa loo siman yahay bahalku halistiisu leeyahay isaga sheeshada iyo waxa kale oo dhan ee Ilaahay xaraantinimayba su'aal kale aan rabaa inaan ku weydiiyo in muxuu ahaayay Sheekh Saacadow sidaan u fahansanahay khudbadaha jimcaha waxa lagu soo qaataa wixii mawduuc ah ama arrin ah ee ka jira markaa ummadda islaamka ee meesha ku nool salaada jimcaha lagu tukanayo wixii markaa ka dhex taagan ayaa lagu soo qaataa maadaama ay asaad sheegtay ay xaraan tahay maadaama ay saad sheegtay ay dhibaato weyn ku haysto caafimaadkii bini'aadanka maadaama asaad sheegtay ay Soomaalidu aad u badan tahay haday noqoto shishada cabitaankii haday noqoto sigaar cabitaankii oo waliba sanu ka hadlaynay sigaarka waxa u badnaa ragga imika waxaad moodaa in ay dumarku u badan yihiin shishada oo meelaha shishada lagu cabida aragto 90% dadka jooga waa dumar waliba waa hablo aad u yar yar oo dhalinyarado waa ubaxii soo kacay maadaama ay arintu asaha u culus tahay khudbadaha jimcaha maxaa loogu soo dari waayay wadaadadu uga hadli waayeen waxaan qiyaasayaa horta waa saad u sheegtay oo maalinta jimcaha oo ciidul usbuuca oo islaamku isugu yimaado masaajidada oo salaada jimcaha la tukado cudmada khudbadaha akhriyaysaay kolba yani mawduuca faa'iido u leh in waliba si arko ay u soo jeediyaan waa laga yaabaa inay mararka qaarkoodna ku soo daraan wixii madara ee xaraan ee sigaarku ka mid yahay qaadku ka mid yahay shishadu ka mid tahay khamrigu ka mid yahay sinadu ka mid tahay dilku ka yahay yani tuugadu ka mid tahay inay ka soo jeediyaan dadka uga digaan balse maanta waxaan aad culimada aan u iftiiminaynaa in arrimahaasi oo khatar weyn ku haya mujtamaca muslimka ee Soomaaliyeed inay xoogga saaraan oo haddii ay tahay masaajid haddii meel muxaadaro lagu qabanayo iyo goobaha la isugu yimaadaba inay ka wacdiyaan oo ay ka wacyigeliyaan baan u soo jeedinaa waayo dad baan u haysan waa runtahay xaaraanba sigaarka laakiin halkan waxaan ka caddaynaya sida Ilaahay iyo rasuulkiisuba u caddeeyeen inuu xaaraan yahay sigaarku oo shiishadu xaaraan tahay oo qofka muslimka ah yani aanu excuse u helaynin inuu iska cabo ama sigaar ama shiishad wax isku soo helaya male wax lagu laaban karo oo sheekh hebel iyo maxaan ku dhamaa hebel iyo aan kala u aragtay ma aha waa arrin xaaraan oo go'an weey waana la isku wada raacsan yahay haddii aan qodobeeyo arrimaha maaragta maxaan ku dhaca cadaynaya inay xaaraan tahay shariicada islaamka ku cadaysay waxa weeyaan yani cadaynaya
afarta madhabood iyo weliba fahamka culimada iyo fadwooyinka faraha badan ee culimada soo saaraanba waxa weeyaan addarar calaa sixati linsaan dhibaatada weyn uu caafimaadka bini'aadanka ku hayo oo uu ku keeno waxa ugu culus uu yahay kansar qofka ku dhaca oonu ogeyn oo isla markaana uu yahay khatar qarsoon oo dadka disha khatar qarsoon oo dadka disha khatar qarsoon oo dadka disha oo waliba si tartiiba oo qofka aanu garayn u disha weey ya waa silent killer weey waa yani maartay bal yiraahdaa ama dilaaga qarsoon badhe si hoose oo ogeyn oo waliba tartiib oo kugu soo mar qura kugu soo boodin ilaa uu dhulka ku dhigan mooyaan marka taasi waa kamid oo cilmiyan iyo maxaan ku raad tibiyan yani cilmiga tibiga ana waa lagu ogaaday inuu dhibaato weyn leeyahay ilaahayna waa ka quraankiisa kule wala taqtuluu anfusakum war naftiina hadilina marka wax kasta oo nafta bil aadanka dilaya waa xaraan weey halkaas way cadahay waxa kale oo shariicada islaamku cadeynaysa qodobka labaad oo ah al-israaf wa tabdiil yani xoolihii qofku haystay ama hantidiisii ayuu wuxuu isticmaalayaa si israafa sharciyanna israafku waa xaraan weey waa xaraan qadciyan weey inaad xoolaha ku ciyaarto inaad xoolahaaga meel aan ku habboonayn ku bixisid wax dhibaato ku keenay ku bixisid oo aad ku iibsatid waa xaraan weey sigaarku in la cabo waxa ka sii daran ba lafteeda inuu qofku iibiyo ikam ka sameeyo waa xaraan weey waxa kale oo xaraan ku yahay al-khabuth waa khabuth waxyaalaha ilaahay ka fogaada ويحرم الخبائث إلى قرآن كيسا كله يهي وبكمل هاي وح فول حوي وهو حليله هل كان أكو عبن كهذا ولدي مريكا كوا كا شرعي قصص public سيف public health بيكون درتي هل كان أكو عبن هل كان أكو عبن وهل كان أكو عبن وقرية أكو عبن وهورتس أكو عبن ودقاريجا أكو عبن وبسسك أكو عبنا وجوبها للسوق هذا وملاها عنتظر لقوا مقاحية مل أكو عنينا أكو عبنا مركا وخبث وح الديدي ويا نمر marka waa wax maaragtay iyadana xun weeyaan oo fool xun marka saddexaadna waxa weeyaan afraad oo cadeynaysa inuu xaraan yahay waa jirka bini'aadanka sidoo galay waa tafkiik ama taftiir soo garamaysa al-jismi ya waana xaraan yani maxaan ku dhahdaa bini'aadanka waxa jirkiisa iyo caafimaadkiisa iyo aqligiisa iyo ruuxdiisa wuxuu dhimaya iyo maskaxdiisaba waa xaraan weey okay لا غبار فيه haddaan su'aal kale ka weydiiyo halkaas waxa jira waasaynu ka soo hadalnay oo niri horta waxan waa balwad addiction baa ku jira wax la yiraahdo in la qabatimo oo anad in adag tahay inaad iska daysa oo wax xaraaranayso xaraarad naam isbitaalada ama dhakhtarada waxa yaala muxuu ahaayay qaabab la iskaga daweeyo oo dadka muxuu ahaayay ama talooyin laga siiyo ama dawooyin laga siiyo ama waxyaalaha caynkaas ama wax kale oo nicotine badasha la siiyo waxa kale oo jira dhaqamo kale oo adduunka ah oo iyagoo aan dhakhtarada u shaqeyn laakiin si dhaqamiyana ama si diimaha kale si diiniya in loo daweeyo qofkii oo talooyin la siiyo lagala hadlo la yiraahdo sigaarka uu xun yahay iska daa taageero la siiyo qofka iska daayo masaajidada ma leeyihiin barnaamijyo caynkaas oo dadkii lagaga daayo mise wali looma sameyn lagu wacyi kaliya macnaheedu dadka cababa lagaga daayo oo la yiraahdo iska daaya ka hada qofkii hadduu rabo inuu iska daayo masaajidka kale ma oran karaa sigaarkiina joojiyaan rabaayo ha laygala taliyo ama ha layga caawiyo والله كل يدا علماء وحياله منكر كواي وحلا يدي محانكو هذا مرة منكم مكرم النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح كلية صح مرة منكم مكرم فليغيره بيده يا فإن لم يستعف باللسان فإن لم يستعف بقلبه وذلك أضعف الإيمان رسول كان عليه الصلاة والسلام سدا وعدي ود شريعتنا عدينا سو حديث كان النبي عدينا إياه علماء دمركا كل برنامج كاسي قيب ويبكا قاتان إن يددك كوانيان وهذه قفك rehabilitation وسمين كرنا وقص سميان ودي قويسس كبا كم بدي علماء دي قويسس بيلي إنه حاسس بيلي مركا كل يتوه مسؤولية صارنا وقص سميان محن كودا هذا هو اللوبة هي مركز تم محن كودا هذا إن علماء دي ذلك أوبيامسو مركا وأنا قيب كم ذا مثلا مركا حديث عنه عن نفط إذا كور ربما ما دام إن علماء هاي مسؤول لا هاي والمجتمع مسلمka gaar ahaan mas'uulka haya bilaadanka ba waxa weeyaan anigu waan sameeyaa xeelada ugu fiican baana dadka ugu gudbiyaa qofka soo gadeeyo marka qofka sigaarka cabayeen la kulma ma dhaafo waan la yar baxaa adu dad badan ku dhex jiro waan la yar faqaa
waxaan wax kale aan weydiiyaa waxaan u sheegaa addiinu aan naseexe walaal diintu waa naseexe naseexaan isku soo jeedinaya bal ka warrano markaas qofku ku yeelaya markaad gaar uga baxdo mujtamaca ayaad uga waaniso markaasaan waxaan idhahdaa walaal bal intan adigu haddaad gacanta ku hayso waan xaraaroonaya anigune bal aan jiida ii dhib aan dhuuqe ama aan jiida ii dhib markaasuu odhanaya sheekh adiga laguma ogola markaasaana waxaan ku leeyahay war dee heedhe waxaad adigu aniga naftayda u diiday inuu halis igu yahay aniga bal taada ka warran markaas wallaahi sheekhu waa khatar weeye arrintaas marka qaar baa aniga markaa arrintaasi ku badiyey mujtamaca ku badiyey oo maalan kaarmeel mool baan jooga inta badan oo aan dhalinyarada ku dhex wareega sigaarka cabayseen qaarba maalin u sheego alxamdulilah waxaa maalin dambe ku baraarugay markaasay igu yimaadaan iyagoo faraxsan oo yidhahdaan adeer hal maalin ood naseexa ii soo jeedisay lidiinta waa naseexe go-aankii aan qaatay baan sigaarka ku joojiyo hadda sigaar ma cabo so wax lagu farxan ma marka culimada saasoo kale ubaa laga doonaya laakiin anigu maadaama anigu aan halkan jooga hadda waxaan caddaynayaa tallaabooyinkaasoo kale inaan qaadno kolley culimmada qaar qaadana way jiraan haddana mujtamaca waan u jeedinaynayo qof kasta oo mas-uula qof kasta oo waalida qof kasta oo culimaa qof kasta oo kasxil saaran yahay waxaa la doonayaa qofku naftiisa siduu u jecel yahay inuu hagaajiyo inuu wax xun iskaga ilaaliyo u jecel yahay in uu maxaanku idhaahdaa mujtamaca intiisa kalena ula jeclaa u deeqo qofku uu deeqsi noqdo oo naseexada deeqsi ku noqdo oo talada deeqsi ku noqdo uu dadka u naxariisto oo deeqsi ku noqdo loo doonaya rabbi xasanaada kaas iyo sheekh su-aasha kolley gabagabadii baynu ku dhownahay waxaa kaloo su-aalahan inaan maanta aan ku weydiiyo waxaa ka mid ahayd annagu saad aan ku sheegnay hay-adda walsheer aadba garanaysaan ka soconaa barnaamijka haddaanu kasii abtirsanno walsheer waxaanu kasii nahay jilibka la yidhaahdo East African Smoke Free Program oo ka hadla tubaakada iyo dhibkeeda waxaan kaloonu ka shaqaynaa sidii guryaha la wada dego looga joojin lahaa sigaarka managerada u tagnaa waxaan ku nidhaahnaa dadka residentka ah yaan lagu cabin guryahooda loo ogolaan inay guryaha ku dhex cabaan si caruurta loo badbaadiyo si dadka waayeelka loo badbaadiyo si guud ahaanba nafaha bini'aadanka loo badbaadiyo marka sidee culimadu noo caawin kartaa sidaanu uga dhigi lahayn guryaha soomaalidu degta ee dhaadheer ee ku yaala magaaladan in sigaarka looga mamnuuca si weyn bay idinka caawin karaan way gacan idinkaga siin karaan haddaan si yar iftiimina waxa weeyaan dee laba aan is waraysan isma waraabisaan la yidhi sax dadku haddaanay isku imanoonay maslaxadooda ka hadal waxa ku xuniya waxa ku wanaagsan anay ka hadal dee isma waraabin karaan waxna isma siin karaan sax marka dee waxaan talo ku soo jeedinayaa qayb libax bay ka qaadan karaan maxaan ku talanayna way ka bixin karaan barnaamijka kan laga qayb geliyo culimada oo ay qayb ka noqdaan ayaan soo jeedinaya wayo mashruuciinan ama hay-addan welshare iyo mashruuciinan hoos tagaaba waxa weeyaan waa internationally waa yani mashruuc dadka wax taraya weeyaan organizationkan waa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay cabdillaahi haddaan halkaa hoosta ka xariiqo anigu de waad og tahayo maxaanku idhaahdaa waxaan dadka u sameeyey oo aan mar kastana risaaladii oo dadka gaadhsiiyo waxa weeyaan ugu weyni waa diinteena islaamka oo salaam diinteena nabadgelya diinu salaam baa diinteena ay tahay oo magaca ilaahay salaamka waxaan ka sameeyay markaa organization la yiraahdo World Peace Organization baa sida idinku international welshare international u tihiin balana waxaan leenahay World Peace Organization oo ah dadku inay meel ay joogaan ba nabad ku wada noolaadaan nabadana waxa kamid ah qofku inuu dhibaatooyinka isaga dhibaya dadkana dhibaya ka daayo marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in welshare hay-addan international welshare iyo culimada ay wada shaqeeyaan oo waxaan soo jeedinayaa in waxna istarayaan maantana anigu waxaan ku soo khatimayaa asigaaru xaraam sharciyan sigaarku waa xaraam sharciyan cilmi ahaan iyo fiqi ahaanba liannahu min alkhaba'ith waxa ugu xunxuna ilaahay dadka nahayuu ku dhex jiraa soo garamaysid oo lima fiihi min addarar dhibaatooyinka dadka u geysanayo oo jir ahaan iyo ruux ahaan iyo maal ahaanba u geysanayo xaaraan ku yahay shareecaduna saasay caddaynaysaa culimadii hore ee min alawaliina walaakhiriina saasay caddaynaysaa qur-aankuna saasuu u caddeeyey ayadii aan soo sheegay nagaga filan xadiiska nebiga intaasoo golba ku culinaya soo garamaysid marka waxa kale oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha tayibun laa yaqbal ilaa tayiban qofka bini aadanka ilaahay waa tayib baa la yidhi laa yaqbalu tayiban si kale aan u dhigo ina allaha jamiilu yuxibu ljamaal ilaahay waa qurux badan yahay sharaf iyo ciz iyo karaamu leeyahay waxaa wanaagsan ciise karaamaduu jecel yahay
marka bili aadankan khaliifatullaahi fil ardi laga dhigayo waxaan soo jeedinayaa risaaladan maanta aan ku gudbinaynaa fajasaahu allahu khayra welshar iyo istaafkeedaba ilaahay ha ka abaal mariya maxaan ku idhaahdaa in dadku ay isku naseexayaan اوكي شيخ سعد ادي اد باد ما سنتهاي دين النصيحه ادي اد ما سنتهاي ربي حسنات ka siiyo dadweynahana daawanaya aad baad u maasantihiin waxaan jecelahay mar kale inaan idigu baraarujiyo inaan idin weydiisano codsigeena inaad barnaamijkan taageertaan oo hadafkiisu yahay in la badbaadiyo nafaha dadka Soomaalida ah iyo guud ahaan nafaha bini aadanka ee tubaakada qiiqda iyo qiiqa sigaarka la isku caba ay waxyeelayaan barnaamijkan aad taageero u geysanayso ama aad dhiiri gelinayso ama aad jeceshahay guriga aad degan tahay in sigaarka laga dhaafo dhib kugu hayo ama adiga laftaadu aad rabto in sigaarka iska dayso waxaad nagala soo xiriiri kartaa telefoonkayaga oo ah 612 eber 3251 haddaan mar labaad idigu celiyo waa 612 eber 3251 ama emailkayaga oo ah easfp@walsherinternational.org Facebook iyaguna waa East African Smoke Free aad iyo aad baa mahadsantiin intaanu barnaamijkan oo kale iskugu imanayno waa anigoo Cabdilaahi Ganay ah oo ka socda hay'adda Walshar iyo Imaam Sheekh Sacad oo ah wadaad caan oo laga yaqaan gobolkan oo idigaga tagayna salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wabillahi tawfiiq aad u mahadsantiin Sheekh Sacad السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبالله التوفيق وجزاك الله خير